waa BBC oo idinkala hadlayso muujadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga heli kartaa magaalooyinka qaar internetka ciwaankeena waa bbcsomali.com habeen wanaagsan ayaan habada idinkala leenahay qiyaartabada nagala xiriirta waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caawiya caalamka qodobada aan ku soo qaadan doono waxa qayb ka noqon doona waa kuma alfanaan cabdiraxmaan xidig oo loo yaqaan super star maxaad ka xasuusataa maxaad ku baratay xagee ayuu ka soo galay fanka halkee ayuu ku dhashay qodobada ciyaaraha aan ku soo qaadan doono waxa qayb ka noqon doona Fernandinho oo doonay in uu dib ugu soo laabto kooxda kubadda cagta ee Manchester City xilli xidigaas uu fasax ugu jiray wadanka Brazil ziraa'ida dalka Talyaaniga waxa lagu wadaa in dhawaan la baaso laakiin waxa la ogeyn waqtiga saxda ah ee la bilaabi doono horyaalada kala duwan ee caalamka qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaan idin hayaa anku horeyne maxaad ka taqaanaa alfanaan cabdiraxmaan xidig oo loo yaqaan super star waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sanadka marka uu ahaa 2002 da'diisu waa 7 sano jir waxa uu wax ku bartay xaafadda Xarar Yaala gaar ahaan Minishibia Oka oo loo yaqaan warta nabadda asaga oo ah fanaan aad qiimo iyo qayasara u leh waxa uu ku biiray fanka Soomaaliya hadda waxa uu ka mid yahay xidigaha Sweden ee ku sugan wadankaasi Sweden waxa aad ugu sacabtuma fanaaniin rag cadiin ah haween iyo sidoo kale bulshooyinka ku dhaqan wadankaasi Sweden waa fanaan isla markaan soo jeedasho la iyadoo uu ka qayb galo xalfado iyo sidoo kale munaasabado lagu soo dhaweynayo waa fanaan aad tayadiisu ay u sareyso iyadoo bulshooyinka Sweden ay aad u hadal hayso cabdiraxmaan xidig oo loo yaqaan super star waxa uu wax ku bartay degmada warta nabadda iskuul ku yaalo gaar ahaan Xarar Yaale waa xidig inta badan aftahan hu ah fanka Soomaaliyeed waa nin aan isla weynin iyo sidoo kale kibir marnaba uu ku jirin oo soo jiidasho leh xili aan taariikhdiisa aan dib u baarnay ayaa noo soo baxday in uu yahay fanaan da'yar ah isaguna ku soo caanbaxay heesaha raabka ah cabdiraxmaan xidig oo loo yaqaan super star ayaa inta badan bulshooyinka Soomaaliyeed aad u soo dhabeeyo waa inan hadda soo baxay isla markaana aad soo jiidasho u leh asagoona jecel midnimada horumarka Soomaaliya iyo sidoo kale mideynta dhalinyarada haddaba cabdiraxmaan xidig waa fanaan isla markaa caan ka ah wadanka Sweden waxa uuna ku luuqayaa heese aad u kala duwan wuxuu taageeraa kooxaha Manchester City iyo kooxda Atletico Madrid waxa la guddoonsiiyay garoon asaga oo ku sugan garoonka Etihad Stadium fanaanad ay ku sibaran tahay super star taas oo ka dhigan in uu gaaro horumar aad u sareeya cabdiraxmaan xidig ayaa sidoo kale waxa jira muuqaalo asaga oo ku sugan garoonka Brighton Stadium oo ay ku ciyaarto kooxda Atletico Madrid taas oo ka dhigan in uu yahay nin fanka heer sare ka gaaray sidoo kale la soo bandhigay heese aad u fara badan waxa uu ku luuqayaa heesaha raabka asaga oo weliba ku heesayo afka Soomaaliga ayaa haddaba waxa u sacbatuma rag iskugu jira cadiin iyo Afrikaan iyo sidoo kale habla cadiin ah taasi ayaana ka dhigan in fanaankan cabdiraxmaan xidig super star uu guul weyn u soo hooyay dalkeena Soomaaliya sidoo kale waxa jira bilado ay guddoonsiiyeen dawladda Sweden waana fanaan u soo baxay wadankeena Soomaaliya intaas inoo joogto taariikhdii maanta iyo dunida